maxkamadda gobolka Sool ayaa xukun iyo ganaax isugu jira ku riday gaari waday dhir ay soo qabatay wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa laamaha ammaanka uu hogaaminayo isduwaha wasaaraddaasi isla markaasna dhirtaas ayaa lagu soo jaray sifo sharci darra waxaana xukun iyo ganaax lagu riday darawalkii waday gaarigaasi ugu horreynna gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool ayaa halkaasi ka akhriyay qodobadii lagu xukumay damala islaash boqol iyo sagaal 2022 ku taariikhaysan 23 bishii shanaad 2022 dibadda uu ka yahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda deegaanka degmada Laascaanood dibadda gobolka Sool eedeysanaha uu ka yahay ninkii la yiraahdo Cabdirashiid Jaamac Faarax iyo gaariga dhaynaha ah ee lagu shiday dhirta la soo googooyay soo rujiyay geed quwaaxa markay aragtay xaashida horgeynta ee ciidanka amniga ee la qoray 23 bishii shanaad 2022 taasoo uu eedeysanaha ka yahay ninka aan kor ku sheegnay iyo gaarigaasiba maxkamadda gobolka Sool waxay go'aamisay sida tan dambiile waxay ku xukuntay dambiile Cabdirashiid Jaamac Faarax hal sano iyo badh xarig ah oo ah ninka soo rujiyay geed quwaax gaarigana soo saaray xabsiga waxa looga bilaabayaa marka la soo qabto oo maqane ah marka la soo qabta looga bilaabay iyo ganaax lacageed oo dhan 3 milyan oo shilin Soomaaliland waxa sida lagu ganaaxay gaariga lagu soo qaaday alaabta 10,070 shilin oo Soomaaliland ah 10 milyan iyo 70,000 oo shilin Soomaaliland dhirtii iyo in dhirtii lagu beero meel u haboon oo ay beeraan dhinaca dibgeystayaashu waxa loo cuskaday xukunkan xeerka maareynta deegaanka qodobkiisa 15aad wabillahi tawfiiq isduwaha wasaaradda deegaanka Jaamac Maxamuud ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan dhirta deegaankooda waxaan halkan u joognay xukun gaari iyo nin dambiile ah kuwaasoo ka galay deegaanka dambi weyn kaasoo ku eedaysnaa inay soo rujiyeen dhirta geed quwaaxa 23 bishana aan ku soo qabanay degmada Laascaanood aan ku qabanay annagoo kaashanayna ciidanka booliska annagoo kaashanayna waxaan uga mahadcelinaynaa xukunka maanta ay ku riday maxkamaddu waayo dambiga ay galeen waxa weeye dhirtan geed quwaaxa ahi waxa uu sheegay geedkan la yiraahdo qaroonta dhirtaasi waxa weeye waxay ka mid tahay dhirta ugu manfaca badan ee deegaankeena ka baxda oo dhirta ay xooluhu inoogu nool yihiin dhinaca kale waxa weeye kuwa xabagta leh ama fooxa oo kale xabagtiisa waxa fooxa oo kale la mid tahay waxa weeye dhirta ay ka mid ka yihiin balbalka ama hadiga ama muqlada ka soo qaadato beerto marka xukunkiina sidaas ku dhacay ninka eedeysanaha ee baxsadka ah maalinta la soo qabto baa isaguna xukunku ugu bilaabmaya sida maxkamaddu sheegtay Abdiraxmaan Axmed MMTV Laascaanood